sanadkii 1965 madaxweynihii waqtigaas ee Pakistan Zulfikar Ali Bhutto ayaa laga hayaa in uu yiri haddii ay Hindiya samaysato hub nuclear ah waxaan u cuni doonaa cawska iyo caleenta geedaha waana u gaajoon doonaa si aan annaguna u samaysano hub nuclear ah. dhab ahaantii Hindiya way heshay hubkeeda nuclearka, Pakistanna way heshay nuclearkeeda. labada dawladoodna waxa ay si rasmi ah uga mid noqdeen dawladaha farakutiriska ah ee haysta hub nuclear ah. laakiin Pakistan si dhib yar kuma helin ama kuma samaysan nuclear. waxay u martay wadooyin qodxa badan, waxay yeelatay dawlado iyo hay'ado badan oo cadow ah. waxa ku baxay naf, hanti, waqti iyo juhdi xoogan. mawduucan waa mid xiiso badan leh. waxa uu ku saabsan yahay taariikhda safarkii adkaa ee ay Pakistan ka martay in ay samaysato hub nuclear ah si ay cadowgeedii isaga difaacdo. ku soo dhawow, halkan waa Itaal Media, aniguna waa Uways Xaaji Nuur. barnaamijka nuclearka ee Pakistan waa mid ka mid ah kuwa ugu xasaasisan uguna saameynta badan marka laga hadlayo dhacdooyinkii ka dhacay koonfurta Aasiya. waxa uu ka dhashay duruufo siyaasadeed, mid amni iyo tartan toos ah oo Pakistan kala dhaxeeya dawladda Hindiya, si gaar ah wixii ka dambeeyay markii ay bilowdeen dagaalada labada dal. हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है. aan sheekada ka soo bilowno sanadkii 1947 waqtigaas oo golaha wakiilada Britishka ay kulan gaar ah ka yeesheen waxa laga yeelayo xornimada dhulkii ballaarnaa ee la isku dhihi jiray British India, oo laakiin hadda kala ah saddex dal oo kala madax bannaan iyo gobol weli lagu murunsan yahay. waa Pakistan, Hindiya, Bangladesh iyo gobolka Kashmir. intii lagu jiray sanadkaas 1947 maalmo kooban gudahood gumaystihii Britishku waxa uu kala qaybiyay dhulkii ballaarnaa ee Hindiya si uu kadibna xornimo u siiyo. 400 oo milyan oo ruux ayaa ku noolaa dhulkaasi Hindiya oo uu Britishku haystay. in ka badan 220 milyan qof oo dadkaasi ka mid ah waxay ahaayeen kuwa caqiide ahaan Hinduuska aaminsan. in ku dhow 100 milyanna waxay ahaayeen muslimiin. inta soo hartayna waxay kala ahaayeen Buddhism, Sikhiska ama zingazingaha iyo kuwa waxyaabo kala rumaysan ayay isugu jireen. taas darteed Britishku waxa uu go'aan ku gaaray in uu dadkaasi u kala qaybiyo caqiide ahaan oo aan loo fiirinin isir, juqraafi ama wax kale. maalmo gudahood waxaa lagu sawiray xariiqmihii xuduudaha loogu kala sameynayay. kadibna waxaa si degdeg ahayd ku bilowday daadguraynta ciidamadii Britishka ee haystay dhulweynihii Hindiya. The departure of the first contingent of British troops from the new Dominion of India was an historic event. intiinay soo daawatay muuqaal hore oo aanu halkan soo gelinay oo aanu uga sheekaynaynay arrinta Kashmir ayaanu si fiican ugu qaadaa dhignay oo aanu ku faahfaahinay qaabka ay u kala miirmeen bulshooyinka, sida ay markii hore noqotay qariirada Pakistan kadib haddana ay u sii kala go'day, halka ay ka soo bilowdeen xurgufta siyaasadeed, murunada dhuleed iyo dagaalada u dhaxeeya Hindiya iyo Pakistan. waa tii Pakistan la siiyay dhul kala qaybsan oo laba cirif ku kala yaala oo la yiri waxa uu isku yahay hal dal, kaasoo markii dambena kala noqday laba dal oo kala ah Pakistan iyo Bangladesh. waqtigaas Hindiya waxaa hogaaminayay ra'iisul wasaare Jawaharlal Nehru, halka Pakistanna uu hogaaminayay Mohammad Ali Jinnah. isla markii uu gumaystuhu dalkii kala qaybiyayba waxaa bilowday raaf xoog leh. macnaha in dawlad kasta ay iska tarxiisho ama ay dalkeedii ka cayriso bulshada dawladda kale ka soo jeeda. waxa uu ahaa tarxiilkii ugu weynaa abid taariikhda. in ka badan 20 milyan oo ruux ayaa isaga kala gudbay xuduudaha labada dal, Pakistan iyo Hindiya. wadooyinka waxaa qulqulayay Hindus iyo Buddhism laga soo raacdeeyay Pakistan oo Hindiya ku sii jeeda, iyo muslimiin laga soo raacdeeyay Hindiya oo Pakistan ku sii jeeda. howlgalladii tarxiilka iyo qalalaasihii waqtigaasi dhacay ee ka dhashay rabshadaha diimeed waxaa ku dhintay dad
ka badan 1 milyan oo ruux oo labada dhinac ah. dadkii deganaa gobolada Punjab iyo Bengal ayaa isweeraray, kadibna dagaalkii waxa uu ku dhex faafay bulshooyinka gobolada kale oo dhan ku noolaa. dagaalkaas ma ahayn mid toos ay ugu lug lahaayeen ciidamada labada dowladood, inkasta oo dowlad kasta ay bulshadeedii ku dareen ahayd oo ay kaalmo iyo garab istaagba ay si hoose u siinaysay. laakiin bishii Oktoobar ee sanadkii 1947 oo ah 2 bil uun kadib markii ay xornimada qaateen, waxaa qarxay dagaal toos ah oo labada dowladood dhex maray. wuxuu socday muddo 2 sano ah. waa dagaalkii loogu magac daray dagaalkii koowaad ee Kashmir. qiyaastii in ku dhow 1500 askar ayaa ku dhimatay isku darka labada dhinac, halka dhaawacuna uu ka badnaa 3100 askar. intaasi kadib dagaalada, weerarada gaadmada ah, afduubka, arbushaada iyo xitaa xifaaltanka, hardanka, loolanka iyo isdhaleecayntu waxa ay noqdeen sida tusbax go'ay oo kale. dhulka labadaasi dowladood u dhaxeeya ilaa waqtigan waa meel lagu muransan yahay oo weli ah goob xasaasi ah oo saacad kasta uu dagaalka qarxi karo. sheekadaasi dheer waxaan kugu sheegayaa in aan ogaano in Pakistan iyo Hindiya ay tan iyo madax banaanidoodiiba ahaayeen laba dowladood oo uu ka dhaxeeyo xifaaltanka ugu adag caalamka. dabcan waxaan dhigi karnaa maba jiro xifaaltan iyo loolan ka adag kan ka dhaxeeya Hindiya iyo Pakistan. xitaa waqooyiga Korea iyo Mareykanka uma xifaaltamaan. xifaaltankaas adag dartiis ayuuna ka dhashay fakarka farsamaynta hubka nuclear-ka ee Pakistan. Not in competition with India, but we love our freedom and we love our autonomy, and we will not allow India to bully us. sanadkii 1950 Pakistan waxay bilowday danayn ku saabsan tamarta nuclear-ka, iyada oo markaasi ku sheegaysa in ay ujeedadeedu tahay in ay u isticmaasho hab nabadeed. macnaha in ay u adeegsanayso in ay koronto ka dhaliso iyo in ay ku samaysato cilmi baaris xagga sayniska ah. Pakistan muddo ayay darsiisay sida ay ku bilaabi karto qorshahaasi mugga leh, fakarkana ay ficil ugu bedeli karto. We want to make advances in nuclear technology for peaceful purposes and not for purposes of war. sanadkii 1956 Pakistan waxa ay istustay in ay aragtida tallaabo u bedesho, waxayna aasaastay guddi ay ugu magac dartay Pakistan Atomic Energy Commission, guddiga tamarta atomikada ee Pakistan, kaasoo loo soo gaabiyo PAEC, si ay u maamulaan hawlaha nuclear-ka. xilligan barnaamijku kuma saabsanayn mid military kaliya, hadafku waxa uu ku ekaa cilmi baaris iyo horumarin xagga tamarta ah. laakiin sheeko waxa ay laba kaclaysay oo isbeddelka istiraatiijiyadeed ee ugu weyn ee barnaamijkan ku saabsan uu dhacay sanadku markii uu ahaa 1971. sanadkaas 1971 waxaa qarxay dagaal culus oo u dhaxeeyay Pakistan iyo Hindiya, kaas oo sababay in Pakistan ay lumiso dhulkii la dhihi jiray Pakistanta Bari, kadibna ay noqdaan dowlad madax bannaan oo lagu magacaabo Bangladesh. halkaas ayay ahayd meeshii ay wax walba iska bedeleen. dagaalka kadib Pakistan waxaa lagu qasbay in ay madax bannaani u ogolaato Bangladesh si ay u noqoto dowlad iskeed u taagan. sidaas ayayna Bangladesh ku go'day oo ay ku noqotay jamhuuriyad madax bannaan. 1971, a new nation is born. dagaalkaas dhacay iyo go'itaanka ay sida qasabka ah ku go'day Bangladesh waxa uu Pakistan siiyey 10 ay wax weyn ka kororsatay, kaas oo si cad u tusay in ay tahay dowlad taagdaran oo amni ahaanna u nugul diriskeeda Hindiya. marka laga soo tago tirada ciidamada, tababarka iyo qalabka military ee ay haysteen waqtigaas Hindiya, waxaa kaloo meel gabagaba ah u marayay farsamada nuclear-ka, kaas oo ay hawshiisu soo bilowday 3 sano ka hor xilligii xornimada. waa sanadkii 1944. waa iyada oo aysan weli Hindiya xorba noqon, laakiin loo diyaar garoobayo. Hindiya waxaa shaqadaasi u bilaabay aqoon-yahankii reer Hindiya ee lagu magacaabi jiray Homi J. Bhabha, oo aasaasay machadka cilmi baarista ee Tata oo loo soo gaabiyo TIFR,
ninkaas waxaa lagu naanaysaa aabbaha nuclearka hindiya. isla markii ay hindiya xornimada qaadatay waxaa la dhisay guddiga tamarta nuclearka AEC si loo sii horumariyo tamarta korontada. hindiya markii hore waxa ay ku adkaysanaysay in nuclearka ay u isticmaali doonto si nabad ah oo keliya, laakiin laba dhacdo ayaa qasbay in ay sheekada bam nuclear ah u bedesho oo ay military ahaan u isticmaasho. labadaasi dhacdo waxay kala yihiin dagaalkii u dhaxeeyay hindiya iyo shiinaha oo dhacay sanadkii 1962 kaas oo hindiya looga adkaaday, iyo dowladda shiinaha oo sanadkii 1964 tijaabisay hubkeedii ugu horeeyay ee nuclear ah. sanadkii 1966 ra-iisul wasaarihii cusbayd ee xilligaas Indira Gandhi gabadhii lagu magacaabayay ayaa bixisay amar qarsoodi ah oo ahaa in la farsameeyo bam nuclear ah. sidaas ayay hindiya ku dardargelisay howlgalkeedii farsamaynta hubka nuclearka. markii uu dhacay dagaalkii Pakistan iyo hindiya ee sababay in ay Bangladesh go'dana, hindiya barnaamijkeedii nuclearka waxa uu u marayay heer gabagaba ah. hindiya waxay ahayd awood military oo Pakistan ka weyn. haddii ay nuclear samaysatana xaalku waa mid intaas ka sii daran. Pakistan waxa u sawirmay iyada oo ay hindiya toos u gumaysanayso, waxayna istuseen in ay taas dhimasho ka xigaan. The world failed to condemn India in a proper manner. It should have to condemn it. sanadkii 1972 ra-iisul wasaare Zulfikar Ali Bhutto waxa uu ku dhawaaqay in dowladda Pakistan ay samaysanayso hub nuclear ah si ay isaga difaacdo cadowgeedii hindiya. waxa uu yiri hadal nuxur leh oo taariikhda galay: haddii ay hindiya samaysato hub nuclear ah, waxaanu u cuni doonaa cawska iyo caleenta geedaha, waana u gaajoon doonaa si aan annaguna u samaysano hub nuclear ah. waxa uu la jeeday Pakistan dhaqaale ahaan intan way ka sii liidatay. dalku waxa uu ku jiray marxalad dhaqaale oo aad u liita. shacabku waxa uu la daala dhacayay quutulyoonka. dowladdu waxa ay ku tiirsanayd kaalmada shisheeyaha, gaar ahaana dowladda Mareykanka. haddana sidaas oo ay tahay waxaa lagama maarmaan ahayd in ay bam nuclear ah farsameeyaan, iyada oo aanu ognahay in ay ku baxayso hanti aad u fara badan. taas darteed ayuu ra-iisul wasaare Zulfikar u dhahay, walow aanu cawsba cunno una gaajoonno waxaa naga go'an in aanu hub nuclear ah yeelano. tani waxa ay ahayd bilowga barnaamij nuclear ay Pakistan u samaysato ujeedo military. sidaan ognahay, uraniumta ayaa lafdhabar u ah farsamada nuclearka. waa maadadii lagu bacrimin lahaa. sidaas darteed dowladda Pakistan waxaa hor yaallay laba arin in ay marka hore xaliso. tan koowaad, in ay si joogto ah u hesho uranium ay ku qoodiso mashiinada lagu bacrimiyo ee loo yaqaano centrifuges, iyo tan labaad oo ah in ay aqoonyahan aan shisheeye ahayn hesho isla markaana ku takhasusay uraniumta. tii koowaad xalkeedu wuu sahlanaa. Pakistan waxa ay uraniumta ka heli jirtay gudaha dalkeeda, gaar ahaana gobolka Deir Ghazi Khan, halkaas oo laga helay kaydkii ugu horeeyay ee ay ku bilowday barnaamijkeeda nuclearka. maadaama ay adkayd in suuqyada caalamiga ah laga soo iibsado uranium sababo la xiriira in laga baqayo cunaqabatayn iyo xeerarka adag ee dhoofinta qalabka nuclearka, Pakistan waxa ay xoog saartay in ay gudaha dalkeedii ka soo saarto dhammaan uraniumta ay u baahan tahay si ay u qoodiso mashiinada lagu bacrimiyo ee centrifuges. sidoo kale waxaa jiray warar sheegayay in xiriiro hoose iyo iskaashi dhanka farsamada iyo agabka ah ay la lahayd dalal dhowr ah oo ay ka mid yihiin Shiinaha, Liibiya, Iiraan iyo waqooyiga Korea si ay u dhamaystirto baahideeda soo saarista nuclearka. maadaama tii koowaad xalkeedii uu sahlanaa, muhiimadda labaad ayay Pakistan u soo jeesatay, taasoo ahayd in ay hesho aqoonyahan Pakistani ah oo ku xeel dheer uraniumta. taasna hawl adag ba lagama marin. dabayaaqadii 1970-aadkii dowladda Pakistan waxa ay howlgelisay Dr. Abdul Qadir Khan oo ahaa saynisyahan ku takhasusay uraniumta. ninkaas waxa uu ahaa shakhsiga ugu muhiimsan ee dardargeliyay nuclearka Pakistan. wuxuu keenay aqoon farsamo oo ku saabsan bacriminta uraniumta. Abdul Qadir Khan waxa uu ku dhashay magaalada Bhopal oo ku taala dalka Hindiya ka hor intii aan la kala qaybin Hindiya iyo Pakistan. kadib qoyskiisu waxa ay u guureen dalka Pakistan sanadku markii uu ahaa 1952. waa dhowr sano kadib markii la dhisay dowladda Pakistan.
shahaadada koowaad ee heerka jaamacadeed cilmiga physical metallurgy barashada biraha waxa uu ka qaatay jaamacadda Karachi ee dalka Pakistan. qalinjabintiisii kadib waxa uu waxbarasho u aaday qaaradda Yurub halkaas oo uu ka soo qaatay shahaadooyin sare, masterka iyo PhD-gaba, kuwaas oo ahaa kuwii u suurtageliyay in uu helo khibradda weyn ee uu markii dambe ku dhisay barnaamijka nuclear-ka ee Pakistan. Cabdulqadir Khan markii shaqada loo xil saaray isla markiiba waxa uu xarun muhiim ah oo lagu shaqeeyo ka dhisay magaalada Kahota. waa magaalo dhacda waqooyiga dalka Pakistan. waxay qiyaastii 30 kilomitir dhanka bari ka xigtaa caasimadda dalka ee Islamabad. juqraafi ahaan waxa ay ka tirsan tahay degmada Rawalpindi ee gobolka Punjab, waxayna ku taallaa meel istiraatiiji ah oo ku dhow buuraha caanka ah ee Himalaya. shaqadii uu Cabdulqadir Khan ka qabtay barnaamijkaas ayaa si weyn u dadejisay awoodda Pakistan ee ku dhisan in ay yeelatay hub nuclear ah. hawsha farsamaynta nuclear-ka Pakistan waqti aad u kooban ayaa lagu dardargeliyay. markiiba dawlado badan oo caalamka ah ayaa ku baraarugay shaqada weyn ee ay fulinayso Pakistan. Hindiyana waxayba u ahayd dhul gariir ay la argagaxday. Hindiya waxay isku dayday in ay samayso tijaabadeedii ugu horeysay ka hor inta aysan Pakistan tijaabin nuclear-keeda. sidaas darteed sanadkii 1974 Hindiya waxay samaysay tijaabadeedii ugu horeysay ee nuclear ah, tijaabadaas oo loogu magac daray Smiling Buddha. tijaabadaas nuclear ee ay Hindiya samaysay caalamku waxba uma arkin, si qumanna ugama hadlin. waxay ka dhignayd tallaabo loo riyaaqay oo niyadda laga bogaadiyay. Pakistan dhankeeda dhowr jeer ayay dib u dhac la kulantay, cadaadis caalami ah iyo xagal daacin ay dawladaha qaar ku sameynayeen dartood. laakiin sidaas oo ay tahay way sii waday barnaamijkeeda oo weliba si qarsoodi ah ayay shaqadu ku socotay. inkasta oo si guud kor looga ogaa in nuclear ay samaysanayso, laakiin haddana marxaladaha iyo heerarka ay waxmarsiinayso waxay u ahayd arrin sir ah. sanadkii 1979 dawladda Hindiya iyo maamulka Israa'iil ayaa maleegay qorshe lagu duqeynayo xarumaha farsamada nuclear-ka Pakistan si loo burburiyo barnaamijkaas oo gebi ahaantiisba looga takhaluso. sirdoonka Pakistan ayaa ka war helay qorshahaasi gurracan ee dalkoodii loola maagan yahay. waxa ay si degdeg ahayd ula wadaageen madaxdii dawladda. General Mohammed Dia al-Haq oo waqtigaasi ahaa madaxweynaha Pakistan ayaa si cad oo aan gambasho iyo duurxul lahayn fariin ugu diray Israa'iil iyo Hindiya. wuxuu yiri, ma jirto xisaab aan qiyaamaha u dhiganayno. wixii adduunka dushiisiina loogu geysto isla adduunka dushiisii ayaanu kula xisaabtamaynaa oo ku kala calaf qaadanaynaa. haddii aad isku daydaan in aad weerar nagu soo qaadaan, ku tashta weerar jawaab celis ah oo ka culus kana xanuun badan midka aad soo qorsheynaysaan. bartaas ayay Hindiya iyo Israa'iil ku joojiyeen weerarkii ay qorsheynayeen, laakiin hagardaamadu marnaba ma joogsan. siyaabooyin kala duwan ayaana Pakistan la isku dayay in loo dhibaateeyo, loo curyaamiyo oo looga joojiyo barnaamijkaas. Pakistan in ay maalmo hakato mooye marnaba ma joojin safarkeeda. ugu dambeyn sanadkii 1998 waxaa dhacday dhacdo aad u weyn. caalamka oo dhan ayaa indhaha saaray xaqiiqo aan waxba laga bedeli karin. 28 May 1998 Pakistan waxay samaysay tijaabadeedii ugu horeysay ee hubkeeda nuclear-ka ah. weliba waxay ku soo aadisay 6 maalmood kadib markii ay Hindiya samaysay tijaabooyin nuclear ah oo isdaba joog ahaa oo ay ugu magac dartay Pokhran 2. tijaabada koowaad ee ay Pakistan sameynaysay 28 May 1998 waxay ugu magac dartay Jagai 1. haddana 2 maalmood kadib oo ku beegan 30 May 1998 waxay Pakistan samaysay tijaabadeedii labaad oo ay ugu magac dartay Jagai 2. tijaabooyinkan waxay Pakistan ka dhigeen mid ka mid ah dawladaha ugu awoodda badan xagga militariga, waxayna noqotay dalka 7aad liiska dunida ee dawladaha leh hub nuclear ah. sidoo kale waxay noqotay dalka ugu horeeya muslim ah ee haysta hub nuclear ah. shacabka Pakistan iyo dawladooda lagu daray dawladaha iyo bulshooyinka kale ee samaha la jecel dawladdaas waxay bilaabeen dabaaldeg iyo isu tahniyadayn. guuldaradu waxa ay ku bartaa saaxiibadaada dhabta ah, halka guushuna ay ku tusto cadawgaaga go'a isku dadi jiray.
madax badan caalamka ah oo ka hadlayay kulankii qaramada midoobay ee waqtigaas waxa ay ku nuuxnuuxsadeen in ay cambaareeyaan dowladda Pakistan tijaabooyinkii nuclear ee ay samaysay. isla cambaareyntaas waxa ay ku soo lifaaqeen dowladda Hindiya, laakiin ujeedku uu iska caddaa. Pakistan oo kaliya ayaa loo gol lahaa. The Security Council strongly deplores the underground nuclear tests that Pakistan conducted on 28 May 1998. Pakistan markiiba cadaadis caalami ah iyo dhun qabasho ayaa ku bilowday. Maraykan iyo reer galbeed ayaa saaray cunaqabatayn dhaqaale, waxaana la kala dooransiiyey in ay burburiso kana tanaasusho hubkeedii nuclearka ama in ay shacabkeedii gaajo u dhiman doonaan. madaxda Pakistan waxa ay ku adkaysteen in ay nuclearkooda haysanayaan ilaa inta ay jirto dawlad koonkan dushiisa ka dhisan oo nuclear haysata. Pakistan waxa ay la kulantay dhibaatooyin dhaqaale oo xoog leh. cunaqabatayntii dhaqaale ee ay Maraykan iyo reer galbeed saareen sanadkii 1998 waxay keentay curyaamin dhaqaale oo degdeg ah, maadaama uu dalku aad ugu tiirsanaa kaalmada dibadda. Pakistan lost a truly priceless opportunity. Maraykanku waxa uu dhaqangeliyay xeer loogu magac daray Glenn Amendment, kaas oo joojiyay dhammaan kaalmooyinkii military iyo kuwii horumarineed ee ay dawladdaasi heli jirtay. sidoo kalena hay-adaha caalamiga ah sida IMF iyo Bangiga Adduunka ayaa iyagana hakiyay deymihii ay siin jireen Pakistan si ay isu soo dhisto. tani waxa ay sababtay in lacagta dalka ee rubi loo yaqaano ay si xawli ah u qiimo dhacdo. sicir bararku uu kor u dhaafo 12%. sidoo kalena kaydkii lacagaha qalaad ee dalka ayaa aad u yaraaday, taasoo keentay in dawladda Pakistan ay xanibto xisaabaadka lacagaha qalaad foreign currency accounts ee ay lahaayeen dadka shacabka ah si ay u badbaadiso lacagta dalka taala. inkasta oo cadaadisku uu ku badnaa shacabka, dhanka militariga iyo siyaasadda, haddana cunaqabatayntu ma keenin in Pakistan ay ka laabato barnaamijkeeda nuclearka. taas beddelkeeda waxa ay dhalisay dareen wadaninimo oo xooggan. We may pass through this hard time together and become a stable and example country. dawladaha Pakistan saaray cunaqabatayntu waxa ay uga gol lahaayeen in ay shacabku silaxaan kadibna iyaga iyo dawladoodii ay iska hor yimaadaan. laakiin taas ma dhicin. shacabku waxa ay dawladoodii ku bogaadiyeen guusha weyn ee uga soo hoysay farsamada hubka nuclearka. Pakistan isla markiiba waxay bilowday in ay raadiso bedel kale oo ay dhaqaale ka hesho. waxay xoojisay xiriirkii ay la lahayd dalalka Carabta, gaar ahaanna Sacuudiga oo gacan weyn ka siiyay dib u soo kabashada dhaqaale ee dalkaas. Sacuudigu waxa uu Pakistan siiyay shidaal fara badan, qaar si bilaash ah ayuu ku siiyay, qaar kalena waxa uu ku yiri waa deyn aan dulsaar lahayn oo waqtigii aad waxeshaan oo aad iska bixin doontaan. Sacuudigu si buuxda ayuu waqtigaas u garab istaagay Pakistan si ay uga gudubto godoomintii saarnayd. sanadihii 1998 iyo 2000 waxay ahayd markii ay ugu xumayd Pakistan marka laga hadlayo dhibaatooyinka dhaqaale ee dalkaasi soo maray. laakiin sanadkii 2001 isbedel lama filaan ah ayaa dhacay, kaasoo Pakistan si togan u saameeyay. Soomaali waxay ku mahmaahdaa qowdii yeertaaba qolay khayr ugu jirtaa. 11 September 2001 meel masaafo ahaan aad uga fog Pakistan, waxaan ka hadlayaa magaalada New York ee Maraykanka, waxa ka dhacday arin gilgishay caalamka. 19 xubnood oo ka tirsanaa kooxda Al-Qaacida ayaa afduubay 4 diyaaradood oo rakaab ah. 2 ka mid ah diyaaradahaasi ayaa lagu dhuftay daarihii mataanaha ahaa ee xarunta ganacsiga adduunka World Trade Center ee magaalada New York, halka diyaaradii saddexaad lagu dhuftay dhismaha wasaaradda difaaca ee Pentagonka. diyaaradii afraadna si aan ku talagal ahayn ayaa waxa ay ugu dhacday beer ku taala gobolka Pennsylvania oo ay ku burburtay. weeraradaasi argagaxa lahaa ee galaaftay nolosha in ku dhow 3,000 oo qof ayaa u horseeday isbedel weyn oo ku yimid siyaasadda iyo howlgallada military ee caalamka. dhacdadaas waxa ay Maraykanku ku qasabtay in uu bilaabo wax loogu yeero dagaalka ka dhanka ah argagixisada, waxaana uu markiiba qorsheeyay howlgal military oo ka dhan ah dalalka Afghanistan iyo Iraq.
howlgalkaas ayaa looga maarmi waayay dowladda Pakistan. taas darteedna waxaa qasab ahayd in Pakistan lala saaxiibo oo la soo dhawaysto. yaa lala saaxiibaya waaba Pakistantii cunaha lagu dhigay ee la rabay in ay gaajo u dhimatay. Maraykan waxa uu la xiriiray Pakistan waxa uu u sheegay in inta badan cunaqabatayntii saarneed laga qaadayo si uu uga dhigto xulafo muhiim ah oo ay iska kaashadaan dagaalka argagixisada, gaar ahaanna dagaalyahanadii Afghanistan sida Al-Qaacida iyo Taliban. cunaqabataynta inta soo hartayna laga qaadayo haddii ay ogolaato in ay ka tanaasusho hubkeeda nuclearka. laakiin dowladda Pakistan waxa ay ku adkaysatay in hubka nuclearka uu u yahay qalab difaac, haybad umadeed iyo xaq qaran oo aan gorgortanba geli karin. si cad Pakistan waxa ay Maraykanka ku tiri hubka nuclearka ah halkaas ii dhig, gorgortan ma ku jiro. kaliya aan ka wada hadalno in aan dagaalka kugu garab siino, adna aad cunaqabataynta naga qaadid, waliba aad kharash nagu siisid. Maraykanku markii uu arkay sida ay Pakistan u adag tahay iyo danaha gobolka ee aan looga maarmaynin, waxaa qasab noqotay in cunaqabataynta laga qaado. George W. Bush oo xilligaasi madaxweyne ka ahaa America ayaa saxiixay go'aan meesha ka saaraya dhammaan cunaqabatayntii dhanka dhaqaalaha iyo militariga ee saarnayd Pakistan, isaga oo Pakistan u aqoonsaday in ay tahay saaxiib muhiim ah oo ka baxsan xulafada NATO. waa waxa ay ugu yeeraan major non-NATO ally. dowladda Pakistan dhankeedii waxa ay ballan qaaday in ay Maraykanka ka caawinayso dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Qaacida iyo Taliban-ta Afghanistan. tallaabadaas waxay horseeday in Pakistan ay dib u hesho gargaar dhaqaale oo balaayiin dollar ah iyo in ay si fudud looga cafiyo deymihii lagu lahaa badankoodii si loo badbaadiyo oo looga badbaadiyo burbur dhaqaale. halkaas marka la joogo waxaad soo xasuusataa maahmaahdii ahayd ninkii xoog lahaa xaajo u toostaa. taariikhda ma soo helaysid bulsho baryo iyo sasabasho bas ku joogtay oo haddana cizi iyo karaamo ku noolaatay. maanta Pakistan waa awood nuclear oo buuxda. hubkeeda waxaa maamula hay-ado military oo adag, aadna looga taxadaray. waxay taagan tahay hubkeenu waa mid ka hortag ah oo aan ahayn mid weerar ah oo aan cid kale ku dhibaataynayno. barnaamijka nuclearka ee Pakistan waxa uu ka dhashay cabsi amni, xifaaltan adag iyo tartan xoog leh oo kala dhaxeeya Hindiya. laakiin marka ay timaado dood caalami ah, Pakistan waxay u aragtaa hubkeeda nuclearka mid lagama maarmaan u ah jiritaankeeda siyaasadeed iyo amni. halkan waa Itaal Media, aniguna waa Aways Xaaji Nuur Aways R. tan iyo mar kale oo aanu halkan ku wada kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo, amaana Allah.